Asalaamu calaykum. Maanta waxaan sharaxaynaa filim American ah oo lagu magacaabo Love, Death and Robot. Asalaamu calaykum. Lamaanaha dad yar ayaa hadda u soo guuray gurigooda cusub. Ninka waxaa la yiraahdaa Rob. Wuxuu keenay saddex guriga halka xaaskiisa Gail ay dhigto maacuunta jikada. Gail waxaa dhibay talaajad duuga oo mulkiiluhu ka ay aqalka ma ay ka takhalusi kareen. Laakiin waxa ay agtay wax qariiba oo yaala jikada dhexdeeda. Rob waxa isku dayaa inuu ka dhaadhiciyo uu sheego in talaajadii hore ay leeyihiin teknoolojiyad kuwa cusub aan lahayn sida matoorka weyn ee ku leedahay dusha. Gail waxa ay si jees u leedahay waa la iyada oo ku maadsanaysa ninkeeda. Kadib markii ay dhamaysay hawshii guriga waxa uu soo jeediyay inay cabaan xoogaa khamriya. Rob waxa uu furay talaajadii hore si uu u eego inuu baraf leeyahay. Uu la yaabo waxa uu ka arkay qaybo qari weyn oo baraf oo daboolaya qaboojiya. Wuxuu helay qayb oo wuxuu geliyay cabitaankiisii. Waa ay fadhiisteen oo waxa ay ku qaateen cabitaan guriga cusub. Kadib cabitaankii Rob waxa uu ku arkay qaab dhismeed qariib oo ku dhex jira barafka. Marka Rob uu ogaado waxa ay tahay uma eka inuu rumaysan doono. Wuxuu u dhiibay barafkii Gail isaga oo raba inay xaqiijiso inay wax ku jiraan. Waxa ay soo saartay miyaarad weyneynaysa. Labadoodu waa ay eegeen waxayna ku dhex arkeen maroodi yar oo barafay oo ku dhex jira gudaha barafka. Labadooduba waa ay wareersan yihiin waxa ay dareemayaan in makhluuq yar la ugaarsaday sababtoo ah wuxuu dhinac ku leeyahay warmo. Gail oo wareersan ayaa ku noqotay qaboojiye oo ka soo saartay qaybo baraf ah. Ugu dambeyntii waxay soo muuqday ilbaxnimo dhexe oo yar oo shaqaynaysa waqtiga qaboojiyaha dhexdiisa. Wuxuu u muuqdaa mid si degdeg ah ku socda. Lamaanahan ayaa la yaabay sida ay tani u suurtagali karto. Dadka gudaha ku jira uma eka inay dan kale yihiin kooxaha waaweyn ee daawanaya. Muddo kadib Rob waxa uu jirkii yar ee maroodi ku aasay geedka guriga hoostiisa. Gail ayaa ku maadsanaysa waxa ay fureen mar labaad qaboojiye si ay u arkaan in waqtigii dhexe uu isbedelay. Markii ay dhowr daqiiqo maqnaayeen 10 sano ayay ku dhex marayaan dadka qaboojiya. Waxa ay daawanayaan dad dhismo dhaadheer ku dhisanaya ilbiriqsiyo. Rob waa murugaysan yahay sababtoo ah waxa uu seegay xilligii shaqada. Wuxuuna la yaaban yahay haddii dadka ku jira qaboojiyo ay u maleynayaan inay yihiin ilaahyo. Laba shaqaalaha oo ku dhex jira qaboojiye ayaa ka caawinaya labadan doqon ee maalin walba daawada. Muddo yar gudahood waagii warshaduhu waxay isku bedelayaan waqtiyo casri ah waxaana la sameynayaa dhismayaal dhaadheer oo waaweyn oo dhaadheer. Walxo yaryar ayaa dul heehaabaya dhismayaasha kuwaas oo Rob uu ku wareersan yahay. Laakiin Gail ayaa soo jeedisay in laga yaabo ay yihiin diyaarado. Lamaana waxa ay si xiiso leh u daawanayaan iyagoo waqtigu isku bedelaya waqti xaadirkan. Rob waxa uu qoslayaa isagoo eegaya dhismaha Starbucks-ka isagoo isku dayaya inuu la xiriiro adduunka yar. Markii si lama filaan ah gantaalo waaweyn oo dhalaalaya lagu soo riday magaalada yareed. Rob ayaa aad u naxay isagoo dib ugu soo dhacay jikadii. Gail ayaa isku dayaysa inay caawiso isaga halka dadkii ku jira qaboojiye ku jiraan dagaal. Shay kasta wuxuu u muuqdaa inuu burburay. Lamaana waxay eegayaan mustaqbalka qallafsan ee aadanahan laakiin uma eka in ay daneynayaan. Gail waxa ay xidhay talaajadii iyada oo ku andacoonaysa inay dadku aanay ka soo bixi karin dagaalka daqiiqado yar gudahood. Dabadeed waxay dalbadeen biisa iyaga oo gebi ahaanba iska indha tiraya dagaalka nukliyeerka ee ka dhacaya qaboojiyaha. Qiyaastii hal saac kadib Rob waxa uu soo jeediyay in ay furaan waxa gudaha ka socda. Lamaana ayaa u muuqda in ay ka baqayaan in ay furaan qaboojiye iyaga oo ka baqaya in ay eegaan dabargo'a aadamaha. Si kastaba ha ahaatee waxa ay la kulmeen yaab markii ay ugu dambeyntii fureen. Dagaalkii uu dhamaaday oo aadamuhu waa ka soo kabteen. Waxa ay xitaa ogaadeen baabuurta duulaya oo waxay isbarbar dhigayaan meesha yar ee mustaqbalka iyo magaalada Emerald. Aadamaha yaryar waa uu ka horumarsan yahay sidii hore. Dunidu waxa ay leedahay dhowr dhismo oo dhaadheer oo ku xidhan buundooyin. Laakiin ahraamta kaliya ee qaab dhismeedka lamida ayaa la wareegaya. Waxay u maleynayaan in qof walba uu ku nool yahay gudaha ahraamta. Hadda marka uu ahraamku soo baxo waxa uu daa ka qaadayaa qaab dheeman u samaysan oo gudaha ah. Waxa uu nuugayaa magaalada oo dhan. Ugu dambeyntiina uu dilaacaya isagoo u soo diraya dhimbiilo tamar ah oo u duulaya jikada. Lamaanaha waxa ay si xiiso leh u daawanayaan dhimbiilka qolka uu boodbooday sida duqsiga. Waxay aaminsan yihiin in bini'aadamigu uu kashafay sirta caalamka oo ay hadda ku socdaan meel bannaan ah taas oo ka baxsan filashadooda. Ugu dambeyntii meeshu waa ay baaba'aysaa taas oo loo maleynayo inay tusinayso dhammaadka adduunka yar. Lamaanu waxa ay daawanayaan qaboojiyaha faaruqsan iyaga oo jahwareersan. Waxa uu la yaabay in ay soo laabanayaan iyaga laakiin Gail waxa ay ku andacoonaysaa in aanay suurtagal ahayn. Rob ugu dambeyntii waxa uu xidhay qaboojiyihii iyaga oo goobjoog u ahaa wixii ka dhacay qaboojiyaha. Hadda waa subaxdii xigtay. Labadoodu waa ay tooseen oo waxa ay sii wateen hawlahoodii subaxnimo.
Si kastaba ha ahaatee, fikirkoodii hore kama bixin maskaxdooda. Waxa ay go'aansadeen in ay furaan qaboojiyaha markii ugu dambeysay si ay u hubiyaan in wax walba ay runtii dhammaadeen. Si la yaab leh, waagii diinosoorka ayaa soo noqday. Dhowr daanyeer oo yaryar ayaa cunaya hilib diinosoor dhintay. Waa cararayaan marka uu diinosoor kale soo weeraro. Dhacdadu waxa ay dhammaanaysaa iyada oo lamaanuhu sii wadaan daawashada makhluuqa yaryar ee ku jira deegaankooda dabiiciga ah. Fikradaha waqtiga iyo cabbirka labadaba waxa caqabad ku ah qaboojiyaha sixirka ah. Kaliya waase in qaboojiyaha loogu yeero dhacdo dabiici ah sababta oo ah siday ku timid weligeed laguma sharixin filim gaaban. Qaar ka mid ah taageerayaasha bandhigga ayaa aaminsan in talaajadu ay lahaayeen mulkiilayaashii hore, kuwaas oo ka daalay daawashada masiirka aadamaha si isdaba joog ah. Sidaas darteed ayaa ay uga tageen guriga kahor inta aysan guurin. Filimka waxa kale oo ina siinayaa rajo mustaqbalka ah, sababta oo ah adduunka ku jira qaboojiye ayaa kasoo kabtay dagaalkii khasaaraha badnaa abid oo bini'aadamku arko. Si kastaba ha ahaatee, iyaga oo daawanaya ayaa ay dalbanayaan biisa oo ay ku raaxaysanayaan iyada oo dunida yari dagaal ku jirtay. Waxaan la kulanaa dayacnaanta dadka iyo dareenkooda mas'uuliyadeed ee aan jirin ee ku wajahan dhibaatooyinka adduunka. Waxa aan markhaati ka noqon karnaa mustaqbalka aadamaha oo ku dhammaanaya dabar-goynta si ka duwan dhammaadka xun ee ay inta badan dadku saadaaliyaan. Waxay ina tusinaysaa suurtagalnimada in aadamuhu garan karo caalamka oo ay la mid noqdaan kubbadda tamarta ee lagu sameeyay ahraamta sida munaaradda oo kale. Waxay u badan tahay tiknoolajiyadda u oggolaanaysa in ay ka baxsadaan xaqiiqda. Kadib markii aan ogaanay sir kasta oo ku saabsan jiritaanka kubbadda tamarta ayaa ku luntay hawo khafiif ah, taas oo muujinaysa in bini'aadamka ay beddelaan cabbirka oo ay isku beddelaan mid sare.